aniga guusha agaaray waxa weeye in aan siyaasadda Soomaaliya ee halka dhinacan ka rarnaa in dhexdhexaad ka noqdo oo ummadda Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed in dhexdhexaad ka noqday oo ma sha Allah maanta ismeeyeen mucaaradi muxaafadba oo dalkeena aan jeclaadiyad markaan arkay diban wicilay markaan arkay in Soomaaliya siyaasadeedu ay tahay mid ku salaysan 4.5 tusaale hadda fiirisid Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxa taageerayo nimanka galmudug ama bargidin oo dhan Cabdiraxmaan Cabdishakuur bay taageerayaan nimanka majarteen oo dhan waxay taageerayaan ninka Dariya nimanka isaaqi xagga degan oo dhan waxay taageerayaan ninka Musabixa nimanka absama makuumada ee Jubbooyinka degan Axmed Madoobe ay taageerayaan marka inta soo arteena aan arkay madaxda qaranka ee Soomaaliya inkastoo shaqaale leeyihiin ogaada shaqaale leeyihiin dad badan oo shaqeeyo ma sha Allah oo wasaaradaha kala duwan uga shaqeeyo haddana dadka majority-ga taageerada u hayo dadka kale magaraysaad waa jifooyinkooda markaan hawshaas arkay ee aan dareemay baan aniga go'aan ku gaaray inaanan cidna aanan u eexan oo cid kale u qaban oo dhexdhexaad ka noqdo ma sha Allah oo dhexdhexaad ka noqdo oo caalankii iyo dastuurka Soomaaliyeed iyo ciidanka Soomaaliyeed kaliya inaan taageero oo waxa kale ee siyaasadda kale Soomaaliya inaan ka noqdo nin dhaxda ka taagan Cabdiraxmaan Cabdishakuurna aan colaysan iyo reerkiisa Axmed Madoobe iyo reerkiisana aan colaysan Dani iyo reerkiisana aan colaysan Farmaajo iyo reerkiisana aan colaysan laakiin siyaasadda Soomaaliya sida ay tahay inaan ka hadlo markii horeeto markii hore aan duqbulo 3 sano Farmaajo taageeray khayra taageeray daacad baan ku taageeray shilin lacag may siinaynin weligii imay bay gareenin waxa ku taageeray Soomaalnimo iyo waxqabadkooda wanaagsan iyo siday ula yimaadeen magaraysaa waxqabadkooda yimaad laakiin mar walba ogow dawlad walba markay soo dhamaato gabagaba marayso ugu dambeyntii waxa weeye kala guurka lagu sheegayo jawaana la buuxsanaya waa la kala cararaya nin walba orod buu galaya fakatax kama fatuura ayaa la aadaya marka aad marka hadaad reerka ahayn ama cid ahayn ama tuumba kale meel kuugu jirin waxa weeye meel cidla lagaaga tagaya ma sha Allah marka aniga iyo muwaadiniin kale far badan oo Soomaaliyeed waxaanu jecelna waa calanka waxaanu jecelna waa ciida qabyaaladana aad uga fogeynaadia halkaas kaga tagaya guusha anigu aan gaaray sababtoo hadda nimankan dawladda ama qabiil ahaan madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha deewana ma garaysaa taageerayaashooda dadka taageero tusaale kale hadda anoo duqbulo garaysaa social media waan cunay waa laqay waa qardamsaday muddo dheer ba ku soo jiray mucaaradka waxay dhigi jireen duqbulo lacag qaata ama shilibaad lacag lagu siiyo ama waxba lagu siiyo hadda markaan dhexdhexaad noqday nimankii aan 3 sano soo wada shaqeyn abaan taageeray boqolkooda fiirso waa anoo ku dambaabeyno dambi iska ilaalinay Ilaahay amarkiis iyo waxa arkaysaa kuwii shalay Ilaahay wadani baa taa ama laandheer wadani ku hay oo hadda dhahayo lacagtii baan ka goosanay ka war lacagtii baan ka goosanay marka waad baa ku qoslaad waxyaabo ku qoslay ka mid marka anigu cidna lacag u siiyeen khayri farmaajana ragaa saaxiibanahay oo dawladii dalka u dareeray halkaas kaga tagay marka guusha anigu waa gaar waxa weeye inaana maanta ka xanaajinin Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ana ogihiilneen Farmaajo inaana Sheekh Shariif maanta kaga oysiinin uu sandeeynin social media laga caynaya social media laga bursanaya yaa ugu bishaareynaya oo 2020 Farmaajo iyo Khayre iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Sheekh Shariif iyo magaranaysaa Allah musta'an Axmed Madoobe inay ismiin oo kii wax qaldo oo ummadda Soomaaliyeed magaranaysaa wax ka qaldo inaanu duqbulo sheegay kii ummadda wanaag u qabto fiican u qabto ina ana duqbulo sheegay hadday Farmaajo qabtaan wanaag iyo fiican qabtaan ma madaxdanada waa miradanada ducay naga muday waa la sheegayaa halka hadday wax khaldaan waa la sheegayaa iyada turkeeda marka halkaas kaga taa guusha anigu waa gaar waxa weeye maanta kaga farxinayo oo sanadka cusub aan ku soo dhaweynayo in qararacdii in la'aantii dhinaca aan ka raraa inaan ma sha Allah xorkaay maanta oo aan muwaadin xor ah oo dalkiisa jecel oo madaxdiisa kala duwan mucaarad iyo muxaafad hadeeyeen ma garanaysaa soo wada dhaweysanayo oo maanta Sharbaskoodo fiiri heerka waxyaabo qaar marka dib u noqdo aniga godobaha aan dawladda u galay oo nimankan ama taageeriya u galo waxa nimankii mucaaradka ahaa sida Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Sheekh Shariif cadow ka dhig waxaan Soomaaliya inaan ka xigno inaan ka xigo aniga ka xigo Farmaajo u ka xigo oo khayr ka xiga ka dhig we make them like a nobody come on wa ajnabi ka dhigna ma waa muwaadiniin way fikirkooda leeyihiin dalkana waa dal dimuqraadi
come on taas waa xaaladda la tagay marka arrimahaas dastuurkii dib u akhriyay wax badan halkaas kaga tagaya guusha agaar waxa weey in maanta aan dhaxaad ka ahay Soomaaliya siyaasadeedii ma sha Allah kuwa dawladda isla taageernaadir macaan anigu lacag la iibsiin kuwa dawladda mucaarad ku ahaana lacag la iibsiin aadiyad laakiin waxaana muwaadin shaqaysto xoogiisa xamaasho shaqaysto runta sheego xaqiiqda sheeganahay wallahi aan been runta sheego xaqiiqda sheego ma sha Allah dadkuna sidaas ugu jecelaano dablow in runta ka hadlay ogyihiin halkaas aan kaga tagay waxaan ka hadlayaa waxa weeye khayre iyo farmaajo hal sanadkii saddexaad baa u dhamaaday 2019 waxa ay soo qabteen oo aanan ku daahaynin wanaagoodii iyo ficnaantoodii iyo wixii ka khaldamay baan less than 5 minutes ku dul maraya insha Allah waxaan aadayaa ma garanaysaa howl kaloon u soo galay oo aad iyo aad aan meesha rabeyna uga hadlo raarow aad ya ka hadlay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ra'iisul wasaare xasan cali khayre horta runta wanaagsan xaqiiqdana way wanaagsan tahay Soomaaliya inama soo marin horeyna inama soo marin taariikhdana meel noogu qorato ma garanayno ra'iisul wasaare iyo madaxweyne Soomaaliyeed oo muddo 3 sano inta wada shaqeeyeen dalka Soomaaliya u shaqeeyay oo 3 sano isla dhameystay Soomaaliya ma soo marin waa kredit ay u baahan in la siiyo oo lagu sharfo oo taariikhda iskuulada Soomaaliya insha Allah mustaqbalka lagu dhigi doono way waa ko 2019 farmaajo iyo khayre maguul bay wahayd mise fashil bay wahayd labadaasan markay isbarbardhigaya aniga fikirkayga markaan hadlo aan duqbiloway khayre iyo farmaajo 2018 2017 waxa ay qabteen aad buu sareeyay 2019 wax qabadkooda iyo siyaasadooda hoos bay socotay runta wanaagsan hoos bay u sii socotay wax la taaban karo oo maanta lagu faani karo oo la oran karo waxaasi sanadka 2019 ee ina dhaafay bay qabteen ma jirto aanan ka ahayn inay galmudug burburtay aanan ka ahayn in muxuu ahaa Jubbaland cuna qabateen la saaray aanan ka ahayn in galmudug muxuu ahaa Puntland meesha la yiraahdo qalalaasho siyaasadeed oo weyn oo aad u tiro badan uu galay saddexda arrimood ya ugu weyn siyaasadda Soomaaliya 2019 waxa 2018 iyo 2019 anaga inoo shaqeynayeen oo Soomaalida hooyooyinka Soomaaliyeed u shaqeynayeen wanaag fiican iyo qurux badan oo sameeyeen ba jirto oo aan la xaqiri karin oo ka mid tahay in caruurtii Soomaaliyeed ee xabsiyada adduunka ku xiraa in laga soo daayay in ma garanaysaa sharaftii iyo karaamadii ummadda Soomaaliyeed ee dib u soo noqotay in ma garanaysaa heer sare la gaarsiiyay deyn cafintii iyo habeentii iyo ma garanaysaa dejintii ma garanaysaa mashruucyada kala duwan iyo dhaqaalaha Soomaaliya kala duwan iyo cashuur soo xareenta inay 2018 iyo 2019 meel wanaagsan ay ka gaareen 2019 arrimaha gudaha Soomaaliya banaanka wax laga soo qabto waxa ka jira kaliya in hal safaarad ah laga furay Washington DC waa hal safaarada kaliya waxa 2019 oo dhan ina soo maray oo caqabada oo la taaban karo oo la dhigi karo dawladda nabadda nolol Soomaaliya ka jirta oo hogaaminaya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaare xasan cali khayre waxa ay qabteen ee la taaban karo ee la dhigi karo waxa qabteen ay wanaajiyeen waxa kamida kaliya in hal safaarad ah laga furay Washington DC taasha ku faani karna kaliya negative kooda iyo positive kooda sanadkii 2019 waxa badnaa negative kooda aad u badnaa adalkayga dhigayso Axmed Madoobe iyo Doble iyo Kismaayo iyo Jubbaland oo cuna qabateen la saaray oo burbur loo horseeday galmudug oo dhisneed oo xaaf uu iska wadatay oo ayadana ma garanaysaa khadka laga baxay gaal kacay wixii ka dhacay oo ma garanaysaa garoonkii iyo ma garanaysaa xaaladii socday iyo lacagihii dawladda ay ku bixisay la dhahay ma garanaysaa siyaasadii aan deganina barta ka dilacday waa looga Puntland wixii qalqal galay siyaasadeed waa la soconay dhooba daarood iyo baarlamaankeedii iyo kala cararkeedii iyo dadkii ku dhintay magaalada ma garanaysaa Garowe baarlamaankeeda ku dhintay Garowe magaalada xarunta baarlamaanka ku dhintay waa la soconay sanadkan sanad murugo ayuu u ahaa dawladda Soomaaliya ee uu hogaamiyo mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaare xasan cali khayre cid hadda sheegi karto oo wax la taaban karo oo 2019 ay dawladdan qabatay oo la dhigi karo waxaasan ku faaraynaa sidii 2018 ama 2017 wixii ay qabatay ee wanaaga fiicnaanta 2019 ma jiro okay
سنة كان 2019 صار دافن سنة مرجو أيوها سنة هذه مقرسة ودي بدن بها ضد قارئة أو دولة الصومالية كجرو أو مهم وها أمد الصومالية أو وحبرتي أو قويهنها يا دولة الصومالية مقالة أي كحوج بدنيد مقدسايد إذا كاللبي الله بعتن ككون أمسوم أي جوجين إذا كسيدي توان ككون صوماليا اللوتو برين أي كسجناين أو حارنتي مدحتويد أي كتالو أو حارنتي رئيس الوزراء أي كتالو يا وحال قد لي ضد آديات أقيم بدن أو مدحت الصوماليا كمذا هتصال الله ونحرسته إلى هاي جندي هجيو إنجنير عبد الرحمن عمر يريسو إنجنير يريسو وحال قد لي حارنتا دولة حمر لوجا عرميو دولة هوسي حمر لوجا عرميو يا اللي قد لي جرو حفيز كيس أسجو جوجو أو شر قبنايو أو شر مالن ليه دولة حمر أيسكله هيت قبنايو يا بم حفيز كيس نحديسي بم وقرح بم وحبرتها كل انتي ضد قارئ ضد شرف لها ضد صومالي أسو شغية سيدا عاد فتح حالنا إنجنير يريسو dad qaali ah oo aanan magacyadooda halkan ku soo koobi karin oo gaaraya 10 ya hal maalin meel ay dawladii ku xoog badnayd oo caasimadii ahayd oo ciidankii amisom ay joogan oo ciidankii dawladdu ay joogan oo ciidankii ajnabiga kala duwanaa ay joogan yaa lagu diray qof muwaadin Soomaaliyeed oo waliba xubin sare oo gudoomiyay gobolka Banaadir ahna duqi magaalada ayaa lagu diray wanaaga معناها إلا حجرة ما هناك نمكن مجرسة وناجي إفنانتي قبتين سنة كان سجالي لبادي يكون السجالي تمكي وحبنا نيجاتيف كذا بدنا وكسي تجيا وهذه يتبنوا تجيا هولا كلام السعودة صدني اللي يكون مليون أو دولار برمين إن أيضا نقله هوش هذا قلو سنة كل لبادي يكون السجالي تمكي دولة دن صوماليا وهو جامي مدن محب الله فرماجو وحوه سنة مرجو سنة هوس ودادع سند مقرساي قيمه أي تاجناين وأورسي ومدة يرجدي أي كقبين يقيمه اللوها يي هوس جد وقريبوها أذياد أو أنا لقبي شيءين أو لقى حقيقي شيء أنا أقول دبنا الضبلوه نلان كتاجري ودكتين قر يقدروا دول دو كتاجري مركا اللي بتكال كمريسو أنا أقول ما شاء الله جوان كيجا شخص شبانها وكقاتي وحاد عادي إن قلمدو لبربري وحاد عادي إن بوتلان إن مقرساي قللاصة سياسية الجلية أو الحقير كرين ماليه مقرساي بوصاصو يقال كعي يقرأ والنفتر كذا يكتبيه برلمان إن مقرساي إن قلمدو واشيغانو مالنا إن جبلان أو صوماليا كترسن أو مقالة كشماي مقرساي جبده هسي جبده دحية كذا أو صوماليا كترسن إن سي ودن كاليتو إن عنقبتين سارتاز the worst flop وينا وحما تاشد إن عنقبتين قبل هذا الصومالي كم إذا اللي صاري الدولة الصومالية أديد إلا صفره إن لو قاضو مقرساي داوينك لو قاضو إن سكرت لو قاضو إن مقرساي إن دتك حنوصنا لقى سوق قاضو إن مقرساي فينا لو سميو إن حقي كل هاي فدرالك لسيه لو ديدو that was the dumbest لطلية مدحونها رئيس الوزراء إيسيه قفك لطلية وسيوي was the worst in the world Somalia وحي كدعي 2019 أما أرنتاسي عنقبتات اللي وساري جبلان أرن وحي ahead very very bad شيء عدي الله فيرين مدحونها كرامدي شيء شرفتي شيء هوس ودكتي تسأله أنا قبيلك مغرغرية رتك الشيء مدحونها الصومالية ومرة حاوية مدحونها قل مدقنا أوجادوي مريحان يوجادنا وإسكويستين مش اللي يراهدو كسمايو وبرهيرالة يمقرساي مورغان يعمر جيش يهوشدو ولا سعن سو مدحونها كرنت كاسي هوس بود عمد الصوماليات حافظة حقوش كسريسو سوبتوا مدام كسمايو وقاديني مريحان إسكويستين مدحونها الصوماليا مدن محمد الله فرماجو مدام ومريحاي هاي نكا ماشي استن اوغاداي هاي سوق سمايه وقاطعنا قبتين كرد واحد ارنتا ارن معناها كهريسو اما مدحوين ويه اما مدحوينه ويه اما مدحوينه هاجر اوغا هريسو مله ميشا مورغان iyo عمر جيش iyo مقرساي برهيراله
hawsheedii un balloo kiisiyey aniga dowladda taageeraya markaa iyada laakiin that was the worst uu tala u qaato madaxweynaha Soomaaliya adduunka warqadaha la wada dhigay meelo badan baa looga hadlay Al Jazeera ayadoo looga warramay madaxweynaha he came from the tribe of Mareexaan which is they want to control Kismaayo and that's why dadkan Soomaaliyeed ee Kismaayo joogo iyo Jubbaland joogo uma garanaysa cunaqabateyntu sare u daweyn halkaas marka qabiilka looga hadlayo laakiin xaqiiqadu markii loo yahay dowladdan oo loogu talagalay dadkeeda inay quudiso oo wax siiso cunto siiso nabad siiso amni siiso badbaadiso no way see cunaqabateyn sare kama Soomaali dadkaaga madaxweynaha haddaan noqdo Soomaali raas caseertu raas Kamboni alla ii doorto inaan madaxweyne noqdo waxa la ii doorto inaan hooyadan ilinta ka tiro waxa la ii doorto inaan dadkan dhaawacooda daweeyo waxa la ii doorto inaan dadkan cunto wax kasto heli karo inaan anigu gaajoodo oo dadkayga wax siiyo yaa madaxweyne liga dhigay there is no way in the world madaxweyne oo dal dhan haysto oo hooyadii iyo aabihii iyo walaalihii iyo dadkiisii cunaqabateen saarayo cunaqabateen saarayo oo dhahayo okay this is political kan aniga ma raacsani okay I don't care Kismaayo diyaaradda meeqa dhimatay oo umul raacday meeqa ma garanaysaa gaajo u dhimatay meeqa ma garanaysaa iskuul iyo jaamacada aaday oo iskuul waxoodii who make that decision waxaa sameeyey madaxweynihii dalka Soomaaliya ayaa wuxuu yiri oo go'aan ku dhiiraday Kismaayo cunaqabateen bas adduunyada kama dheen adduunyada dal madaxweyne dalkiisi iyo degmooyinkiisi iyo goboladiisi cunaqabateen saar adduunyada kama dheen okay negative dowladda Soomaaliya waa badaa big time fashil ba ku yimid aadiya madaxweyne maxsuwan 19 maxaa dhacay madaxweynaha hooyooyinkiisi dadkii asaga uu mas'uulka ka ahaa caruurtii asaga uu aabaha mas'uulka u ahaa aabihii Soomaaliyeed waa goboladii asaga uu ka talinayay inuu siyaasad ahaan yiraahdo no uu hooyo Soomaaliyeed ku dhifiri madaxweynaha waa aabihii amiirkii ummadda Soomaaliyeed weey waa aabihii amiirkii ducadiisana ay ka ceyso ma garanaysaa habeerkiisana uu kacay waxa weeye waa madaxweynihii ummadda Soomaaliyeed raas caseer ila raas Kamboni come on raas caseer ila raas Kamboni quraanjada ku nool iyo bilaadanka ku nool iyo xoolaha ku nool iyo guriga ku yaalo waa aabahoodii weeye waa inuu u wada naxariistaa oo uu yiraahdaa haday maanta garowga gaajootay ma gaajoonayso barito waa inuu cunto siiya uu masaasada u geeyo no way my own president or Somalia president intuu fariistay la taliyaan la fariistay la gorfeeyay la yiri hooyooyinkaagi barta joogay adigaad mas'uulka ka ahayd adigaad madaxweynaha u ahayd ku dhiiraday inuu yiraahdo cunaqabateen baa saarayo madaxweynaha fashil weey very big time fashil weey hadii sida Soomaaliga aan u dhignana farmaajo wixiisa way caadi macnaha hadii anaga aan buunbuuninaynay oo aniga dawladda aan taageerayo dawladda Soomaaliland ku taageeray gooni weedan okay Kismaayo background-keeda waa ognahay waa la soconnaa aad iyo aad la soconnaa Kismaayo waxa isku dagaalay Barihiirale Morgan iyo Cumar Jees majartani ogaadeen iyo Mareexaan sinis 4 jimco 7 siniin magaraysaa 2 jimco iyo dagaal ka dhacay marna Mareexaan baa laga saarayay marna ogaadeen baa laga saarayay marna majartaan baa laga saarayay madaxweynaha Soomaaliya waa Mareexaan okay he said doing a revenge to do magaraysaa bawarki Soomaaliya LC inuu kaga faa'iideysto oo revenge uu ku sameeyo oo magaraysaa nimanka meesha jooga uu ka saaro uu gaajo ku dilo ma dhicin ilaa markiis Kenya meel kale hawlo kala soo baxay adiga dawladda Soomaaliya biggest scandal biggest fashil 2019 ku dhacay biggest fashil scandal dawladda Soomaaliya ku dhacay okay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre anigu saa maqlaa rimaasi waa diidana oo waa ka soo jeeda maqlay aadiyad halkaas uu tagay dawladda Soomaaliya 2019 mugdi waa 2018 waxay qabatay oo fiicnaa quruxda badnaa xabsiyada dadka laga soo deeriyay ma garanaysaa ummadda Soomaaliya la soo dhaweeyay wanaaga badan la qabanay fiicnaanta badan lama qaban aad okay dawladda Soomaaliya hogaamiye mudane Maxamed Abdullaahi Farmaajo aadiyad musuqmaasuqa ma ka fiyowdahay mise ka fiicantahay okay I'll give you trick medicine marna sanadkan markii hadda u dhamaado ama bilaha afraad ya hawl baa soo bixi doonto
yaas dowladda Soomaaliya nidaam qurux badan oo aysan garanaynin dhageysan nidaam qurux badan oo aysan garanaynin nimankii dalka Soomaaliya hore u soo maamulo aysan garanaynin horta nidaamka saliimada ee la yimaadeen dalka Soomaaliya nidaamka wuxuu yahay baan wax yar idin sheegay xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif iyo cabdullaahi yuusuf iyo dowladii ka soo horeysay waxa lagu eedeyn jiray musuqmaasuq baahsan inay galeen muxuu yahay lacaga deeq oo la siiyay ama miisaaniyadii dowladda oo lagu kabiyay oo wadamo ay ku kabiyeen oo si toos ah u lunsadeen oo qaateen $1 million intay iska qaataan ee baxayeen okay dowladdan musuqmaasuq cad laguma helin laakiin arina idin fashilna dhageysta okay Soomaaliya shaqaalaheeda waxa lagu amray inay qaataan ID card let me yes ID card yaa lagu amray muwaadin walba Soomaaliyeed shaqeynay okay and military shaqaale way oo dowladeed way dowladda hoose kuwa dhulka xaqay waa shaqaale way gobolada maamul goboleedyada dalka Soomaaliya dadka ka shaqeynaayo nooc noqdaan waa shaqaale dowladeed way okay dowladda federaalka Soomaaliya naara state-ka Soomaaliya ma federaalka Soomaaliya waxay haysataa oo aan idin sheegay lacagta sida lagu cunaa idin sheegay oo $1 million lagu cuno oo adduunka ogaanaynin qolooyinkan magaraysaa ee wax sameeyay ogaanaynin laakiin ay soo bixi doonto oo hadda lagu daba jiro oo khilaaf badan iyo xaalado badan abuuri doonto Soomaaliya waxa lagu cunaa lacagta saacadan waqtigan $1 million baado qaabka lagu cuno waa qaab ka duwan qaabka xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif ee lacag ku qaadan jireen okay Soomaaliya dowladda federaalka waxay haysataa 600 xisaabtan ila xisaabiya ma shaqaale xafiiseed ma shaqaalo ka shaqeynayo oo xafiis joogo ama howl maalmeed wada ma dowladda federaalka waa 26 wasaaradood way listen to me careful waa 26 wasaaradood dowladda federaalka Soomaaliya iyo xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo xafiiska gudoomiyaha baarlamaanka aqalka hoose iyo xafiiska baarlamaanka aqalka sare afar madaxweynaha ra'iisul wasaaraha magaraysaay baarlamaanka hoose baarlamaanka sare iyo maxkamadda shanta xafiis ay leedahay dhageysta iyo garso muxuu ahaay ninkan xeer ilaaliyaha waa iyo magaraysaay hanti dhowr guud todobadaas xafiisa ugu weyn xafiisada Soomaaliya xafiiska madaxweynaha xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo magaraysaay xafiiska gudoomiyaha aqalka baarlamaanka hoose aqalka baarlamaanka sare maxkamadda sare iyo magaraysaay xeer ilaaliyaha iyo hanti dhowrka todobadaas xafiis ee Soomaaliya budget loogu talgalay budget oo xafiiska inuu ku shaqeeyo oo shaqadiisa oo ku wato loogu talgalay waa miisaaniyadda 2020 oo xalay madaxweynaha Soomaaliya uu saxaaway dhageysa marka xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha waxay leeyihiin 600 oo shaqaale ma aha shaqaalaha cuntada kariyo ma aha shaqaalaha cawska jaro ma aha shaqaalaha amniga ilaalinayo ma aha shaqaalaha sariirta goglo ma aha shaqaalaha magaraysa madaxweynaha shaaw karo ma aha shaqaalaha guriga rinjiyo ma aha shaqaalaha waxa soo dhanbile ma aha waxa soo labada xafiis ee ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha xafiiskooda waxa ka shaqeeya 600 oo qof oo la taliye wa 600 people oo la taliyaale dhageysta dalka wa 600 oo shaqaale oo la taliye qaarkood Yurub ay joogan qaarkood Mareykan ay joogan qaarkood Ingiriiska joogan qaarkood waxay joogan magaraysaa Nairobi xamar qaarkood ma tagin laakiin waxay haystaan ID card waa la taliyaha xafiiska madaxweynaha bula la taliyaha xafiiska madaxweynaha buluq la taliyaha xafiiska madaxweynaha barar waa 600 weey dhageyst 600 waxa active ka less than 20 oo loo baahan yahay la taliyaha amniga la taliyaha arrimaha bulshada la taliyaha arrimaha dibadda waa loo baahan yahay 600 ee qof ee ka shaqeynayo xafiiska madaxweynaha ka shaqeynayo ee la taliyaashu ku magacaaban qaarkood waxa weeye ma bajiraanba they don't exist but laakiin they have a picture ID number miisaaniyad budget ku baxo oo bangiga dhexe ee Soomaaliya loogu saaray jiro hadalkayga dhageyso
على شخص والبقول للطلية لحداس بقول قف وحوقاتها لحكن أو دولار بوقاتها $6,000 ويا سالري يسب بشي حالكي للطلية مشار كيسة واللح بقول أو دولار وي listen to me carefully العجر وي ضد يروي مركز كله فتيد انت نقد تكوشية شتوسة العقل هو بقاته شتوسة أو برير عد أو إنها يسوي جدان بنك انت تجان مليون إشي عندنا منيش this is what is going on لحداس بقول إلا تلي أيديا اللي سميه قاركوت صور كذا ولا جتي يسول كذا كون دول إلا وقت هذاك they don't even know أيدي كذا مليون لكن بس مركز دماتو بنك قد نحق الصوماليا لعق مشارع أيوب حنيا لعق مشارع أيوب حنيا مشارع كسوحاوية $6,000 أوكي لح بقول أو قف أو لتليالكم مقعابا أو كار أيدي كذا كدوان كسين بنك النحق أو من لح كون أو دولار لح بقول واحد كله فتاة لح كون $1 كله ها لح بقول أو كار أو شغالة أو دوان كسين أو عالم كأوسندي ذكر كوا مجرد ساي عند دور جودنا وسندي ذكر أو صور له أو بدير بيس ككجرو أو النقصدية أو لوجو تلقى بهذه الشيء لح بقول قف أو من لح كون أو $1 وحين نقول سابشي وصدق كون $6 مليون يلح بقول أو $1 وين هذا الكيجا هذا الدقيش بشي بنك قدحه يميزانية الصومالية بشي وحكجو إيسو $6 مليون يلح بقول أو كون أو $1 أوكي لح بقول أو كون أو $1 كوا شقية توسوسي $6 مليون أو وحبا كدرن يا ميل كل عيش سن نظامه أو ونكسن أو قروح بدن أو شرف له أو الدريمين يبنكي قد حق الصومالية أو قصب بحده هدي الله حسابيه أو هانت دورك جودي هدي الحساب لو تجو ورسيدا يالو أيدي كيارا يالو ديري بيس كيتالا بيلو حليه هلا حسابيه حفيسه الحليه هلا حسابيه واكرا that's the smartest thing أو إنما كان شيخ شريفيو حاسق محمود لو قولشتي أوكي بشي $6 مليون لح بقول أكون سندكي والله 110 بلود وي أظن هي وديش سندكي والله 110 بلود وي والله 110 بلود وي سندكي $6 مليون لح بقول أكون وحد كل فتاة 110 كلف سوق الراد 110 وحد كل فريسة $6 مليون لح بقول أكون وحد كل فتاة 110 كلف والله 110 بلود سندكي كل حسابتها هو سيقول سقرته النقنس آديات هذا بس حسابتها سوى حين نقنسها صدن يلح مليون بنقنسها صدن يلح مليون $1 أي نقنسها سنة كي whoever idea that create جري whoever نظام كاكسو صاري بنجيجا دحين الصومال العقد كاكسو صاري سنة كي وحرون يسو ومال وجود عيسو صدن يلح مليون $1 عشان كمالو جلسوا وحاول العقد شيء عد أوجان كرتو عد دبجة كرتو سيده كوسو بحذينا عد هي كرتو بله لقيست عد أوجان كرتو عد دبجة كرتو because of database كشغالة كشغية كوسو بحيسها ده ماني مركب أير وحين نقول صدن يلح مليون $1 أو without trace أو اللي دبجة كرين أو اللي أوجان كرين أو اللي لسعون كرين أو اللي فاهم كرين عبنجي نحقق الصومالي كبحيس حسن لقيتك شيخ شريف لقيتك مقرحيسة رجع أوكي الشيخ شريف النفك يستحاول بنجي تجي وركا قصنا ضمن نوفر بالإمكان سبعك بحسجري تبنجي تجان يبعك بحسنين آديان آديان مسقاس وحاوي وهول درته وحالة درته آديان مركا أقول العيال الصومالي السيدة لو كل عنو يقابك لو عنو وحفيزك مدحوناك اللي أكو شيء اللي بقول والله تليانه
only 600 oo la taliyaal waa la taliyaha qashinka waa la taliyaha geedaha waa la taliyaha dhuuso mareeb waa la taliyaha cadaado waa la taliyaha magaraysaa duqbulow hadaladu soo qad waa la taliyaha wow consultant baldaha wax jiro adduunka jiro way oo xaqiiqe oo lacag loo korcuno waa consultant waa la taliyaal oo magaraysaa waa 600 oo la taliyo oo wada title haysto 600 oo la taliyo oo title haysto way taas lacagtana saas ku baxaysa yes ashuurta laga qaado muqdisho iyo shacabka Soomaaliyeed iyo deeqaha la bixiyo adeer si toos musuqmaasuq ma galno musuqmaasuq ma sameeyay lagu leeyahay musuqmaasuq ma galno musuqmaasuq ma sameeyay lagu leeyahay taxi beerka Soomaaliya daas hada lacagta lagu raamsado lagu cuno tidiyaan ma faateen horta inta ma faateen waa faanteen barmalana hadiya si wanaagsan oo qurux badan oo sharaf leh oo cizi leh u faanteen yes corruption ma jiro Soomaaliya cid ka dhageysanaysa male wasaaradda walbeeto 40 140 200 oo la taliye leedahay maxaa 200 la taliye kaale Soomaali yes la taliye amniga loo baahay oo iskuul uga soo bax waxa loo baahay la taliyaha arrimaha bulshada oo iskuul uga soo bax waxa loo baahay la taliyaha magaraysaa noocaas iskuul waa in yar koon aqalka cad Mareykanka la taliyaal bileeyin la taliyaha amniga la taliyaha arrimaha bulshada la taliyaha federaalka waa jira wax jiro weyn laakiin 200 la taliyaha dhuuso mareeb what is going on la taliyaha dhuuso mareeb what is going on la taliyaha cadaado what is going on la taliyaha magaraysaa Kismaayo what is going on la taliyaha Garbahari what is going on la taliyaha Caabuda what is going on la taliyaha Hargeysa what is muxuu ka talinayaa مش سؤال لا تليه أبها طبعا سؤال لا مركز العازل قلنا وزارة والبا والحسابية every وزارة والبا وحيه ستا وحال السي إلى صدح بقول أفر بقول أو كاره أو لا تليه وحاول وزيرنا حركة سا وزيرك أنا وحي هراء شغال يجي بلا شغال يسمى لا عيا كاركة وحنا استوى لا أفرتنا ملاباتنا لا تليه وطا أنا هلي عديا ديال بيش عالم كل عقل عني وزارة الدين توقفته وحي ستا صدق الله تلي صدق الله تلي محاوى صدق من اللي يكونوا قدف مشاري ها سنة بيشي وحوك صدق الله تلي صدق الله تلي ومن اللي حدنا قدف ناسا تاسع والقرام سنة قرد حاسق محمودي مركز جيم كل مرة جيم كاسوي أيقو حسبين ترين بنكي تجرين مقرر مالية هي ديتك لعقت كاش متها قلنا فيل درقات كانت كارتدني هوشن ميسكرين هذه ان هلقاسان مكتي ما شاء الله لكن مدحوينه محمد عبد الله فرماج رئيس الوزراء حسن على القيره لما حقير كره تاريخ وناكسن قروح بدن بكلهن دليل شودر way qaadara oo ku qasbayeen waana madaxweynaha ugu horeeyay raiisul wasaaraha ugu horeeyay muddo 3 sano in hor taagnaa aanan tusin khilaaf aanan tusin xumaana tusin ma sha Allah wanaagooda aan tuqbalo xaqir ma cid kale oo xaqiraysana ma jirto sharaf bay naga mudan ciis bay naga mudan laakiin daliishii xaqiiqda markii laga hadlayo caay ma aflagaada maaha waa runka hadal hiidka la isgaarsiinaya waana run way aadiya sanadkan 2019 ma sha Allah labada kun iyo 20 hadda inoo bilowday ilaahay khayrkiisa ana tuso shirtiisana ilaahay hanaga dubo ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogan waxaan ilaahay uga baryaano wanaag iyo fiicnaan iyo qurux iyo sharaf iyo karaamo ilaahay u siiyo alga marka kaga tago oo aan gabagabadii aan gaaray nimanka mucaaradka sanadkan waxa hogaaminayay Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo yiri thuma wallahi halkaas kaga tagay waxaan rabaa inaan hal mar ka hadlo khayre رئيس وزراء خير ورئيس وزراء سومالي هدي وناقي ساشكتيد تغيرياشا اما كو قبيلك مدحوينها كلين هاشيغن انا كلا قادن waxaan ummadda Soomaaliyeed inay ogaato oo weydiiyo su'aashan uga tago madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hadda ah madaxweynaha Soomaaliya wuxuu ahaa ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya waxa madaxweyne ka ah dalka Sheekh Shariif Sheekh Axmed programka maalin baan ka hadli doonaa ونصود ديارين دونا سنة ونصود قلت دونا شيخ شريف شيخ أحمد كردت كأتسي سمره إلا رئيس الوزراء وحكت لقي فرماجة وحا رئيس الوزراء كدقي الشيخ شريف فرماجة وحي وقبطي عينك ولا عقد السينية ولا بدي يكون كوي تبكي يوناقي وقبطي فرماجة دبر كوسارنا نيكي شيخ شريفها اي مدحونها دلكها we don't give him any credit ما نسين how that's سيدي كل عاد اوكي هدا اون تاقلنا هاي ويسند الله ماذا كون لبعض كمريسو واي خيره وناقة وقبته يفعنانته وسميه يكردت كيسة واي واللي فاقينا نيك فرماجة الله يلا
That's the question arabina umad Soomaali weydiin. Why we not giving him credit ka uu khayra u qabtay ee shakhsiyan u qabtay hadii bari siyaasadda Soomaaliya u damco uu xoqon karo creditkeeda u xoqon karo ma aan siin. What is the difference markuu farmaajo ra'iisul wasaaraha in creditka la siiyay oo Sheekh Shariif laga xaqiray oo Sheekh Shariif wax credit aan la siin. What makes right now khayra oo hadda dhuusamareeb ku sugan oo galmudug hawsheeda hadda waxay taana lagu fashilmay waxay aadina sanadkii 2019 madaxweynaha la doortay ma dhicin sababta keenayso right now in creditkii iyo wanaagii ficnaantii uu khayra qabtay uu sameeyay in dhabarka u saarno farmaajo. That's the question ka rabina weydiyo Soomaali badan iyo shacab badan oo Soomaali waan isku compress garanayna waagu ra'iisul wasaaraha ahaa madaxweyne Maxamed Abdullaahi Farmaajo waxa madaxweyne dalka ka ahaa Sheekh Shariif intii yareeda 6 bilood ee wanaagii u qabtay we don't give mana siinin creditka mana siinin ninka la yiraahdo Sheekh Shariif waxaan creditka siinay ninka la yiraahdo Farmaajo madaxweyne ku noqday oo ku aamino niri waagi uu ra'iisul wasaaraha ahaa wax fiican buu qabtay hadda madaxweyne ka dhigayna kasoo hadda dadkay dhamaanayaan boo waxba baan la qaban hadda marka wanaagan uu khayra qabanayo finaantan uu qabanayo oo ra'iisul wasaarnimada uu shaqo badan uu ku qabanayo uu ku sameeyay why dadka taageero Farmaajo ama ku heebte why do you guys want inaad isku lifaaqdaan oo tiraadaan credit ka la siiyo Farmaajo keenay khayra waxa ma noqon karin maxaa u dhacdaan. That's the question arabo taageerayaasha khayra inaan weydiiyo oo si wanaagsan u jilciyaan oo ay fahmaan baa siyaasadda liirada waagu ra'iisul wasaaraha Farmaajo ahaa creditkiisa saaqaatay cid u la sheer gareey male Sheekh Shariif waxa maanta diyaaradaha u diiday thuma wallahi kaga yeersi kaga weysiiyay maanta khayra creditkiisa waa loo la wadaagay waraadiyaad baadi salaamiya waa waaski duqbrowa kabro faarax walaalkiis macooki ka yara bashir ballah matanaayan xashagora saaxiibkiis qarasho dariskiis ku noolaa rawna garsee ku sahaja bakaja lagti macaan shuriya banaaweyn shanta baqaba qorri anigu xor baan ahay maanta wixii ka dambeeyo dawladda Soomaaliya ma taageero mucaaradkana ma taageero nin dhaxdhaxaada waxaan ahay xaqiiqda ka hadlo sida ay taana wax banaanka u soo dhigana eed baan idin